uu sheegay in akoonkaaga shakhsiga ah ee ah 487 aad ku ururisay lacag gaaraysa 1,364,467.49 senti eedaas lagu soo eedeeyay oo hadii maxkamaddu kugu hesho aad ku mutayso doonto xarig ugu yaraantiisu ay tahay 1 sano ugu badnaantiisuna 24 sano ay tahay eedaas lagu soo eedeeyay ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa ma galin maxkamadda gobolka Banaadir waxay u fadhiisanaysaa dhageysiga dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 577 kaasoo eedeysanad ay ka tahay ayaan Abuukar Maxamed Malab oo xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ku soo eedeeyay dacwad lacag dhaqis iyo maalgelin argagixisada ayaan maxkamadda gobolka Banaadir hor taagan tahay qaybteeda ciqaabta maxkamaddu waxay ku akhrin doontaa eedda xafiiska xeelalinta kugu soo eedeeyay ee maxkamadda uu soo gudbiyay eedaas ay dhageysan doontaa waana fahmi doontaa markii aad fahamtana su'aalo ay maxkamaddu ka weydiin doontaa su'aalahaas aad ka jawaabi doontaa eedeysana ayaan Abuukar Maxamed Malab ina mulki Maxamed Axmed dhalatay 1 bishii Janaayo 1994 ku dhalatay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir degan degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir kuna xiran xabsiga dhexe ee Xamar faahfaahinta eedeysana ayaan Abuukar Maxamed Malab eedda koobaad waxa xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ugu soo eedeeyay qodobka 221 faqradiisa labaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad kamid noqotay urur hubaysan oo ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliyeed adiga oo sameeyay koonto bangi oo ay dhaqaalaha baada ah ku urursadaan kiiskan waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 2 bishii Febraayo 2022 ilaa November 2023 eedda koobaad lagu soo eedeeyay ayaan waa eedda ku xusan qodobka 221 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranku sheegay inaad kamid noqotay urur hubaysan oo aad u sameysay akoon bangi si ay lacag baad ah u urursadaan xafiis hadii qodobkaas lagu helo waxaad mutaysan doontaa ayaanay xarig u dhaxeeyay 3 sano ilaa 15 sano eedaas lagu soo eedeeyay oo ah inaad akoon u furtay ururka argagixisada kana mid noqotay ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa ma galinaan okay eedda labaad ee xafiiska xeelaliyaha guud kugu soo eedeeyay oo ah eedda ku xusan qodobka 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee sharci lambar 1 soo nabaxa 22 bishii labaad 2016 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada sababtoo ah waxaad akoonkaaga shakhsiga ah ee lambarkiisu yahay 487 ee kaaga furan Salaam Banki aad lacag ugu ururisay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab lacagtaas oo dhan 1,372,467.49 senti adiga oo ujeedada aad u aruurisay lacagtaas ay aheeday in lagu maalgeliyo ururka argagixisada laguna fuliyo falal argagixiso kiiskan waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 2 bishii February 2022 ilaa 6 bishii January 2022 eedda xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ugu soo eedeeyay oo ah eedda ku xusan qodobka 3aad ee xeerka lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada oo uu sheegay in akoonkaaga shakhsiga ah ee ah 487 aad ku ururisay lacag gaaraysa 1,372,467.49 senti eedaas lagu soo eedeeyay oo hadii maxkamaddu kugu hesho aad ku mutaysan doonto xarig ugu yaraantiisu ay tahay 1 sano ugu badnaantiisuna 24 sano ay tahay eedaas lagu soo eedeeyay ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa ma galin eedda saddexaad ee xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ugu soo eedeeyay waa eedda ku xusan wuxuu sheegay inaad ku kacdo faldambiyeedka ku xusan qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad oo la akhriyo qodobka 28aad ee sharci lambar 1 soo baxay 22 bishii 2016 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada
sababtoo ah waxaad akoonkaaga shakhsiga ah ee lambarkiisu yahay 47 aad kaga furtay kaaga furay Salaam Banki lacag ugu ururisay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab lacagtaas oo dhan 1,700,467.49 adiga oo ujeedka aad ugu ururisay lacagtaas ay aheeday in lagu maalgeliyo urur argagixiso laguna fuliyo fal argagixiso kiiskan waxa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dib u ka dhacay waa magaalada Muqdisho taariikhda dib ugu dhacay waa 2 bishii February 2020 ilaa 6 bishii January 2022 eeda xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka ugu soo eedeeyay eeda ku xusan qodobka 2 faqradiisa 1 iyo 2 oo ah inaad lacag dhaqisad samaysay oo lala akhriyo qodobka 28 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada oo ah inaad akoonkaaga shakhsiga ah ee Salaam Bankiga furan ee 47 aad ku ururisay lacag 1,372,467.49 ujeedka aad ugu ururisay aheeday in lagu fuliyo falal argagixiso eedaas xafiiska xirlaalintu ugu soo eedeeyay ma gashay ma gelin ma soo dood sharciyeed ka qabtaa ma gelin ay ifrish